salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baan idiin salaamaya saaxiibayaal, halkan waa channelka xogta dalka. kusoo dhawaada qodobada aan idiin soo gudbinayo waxaa ka mid noqonaya maamulka Jubbaland oo xukun dil ah ku fulisay askari kale xalay ku dilay qaybo ka mid ah magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. taliyaha madaxtooyada maamulka Puntland oo xil kala wareegay maamulka Somaliland oo ku dhawaaqday kiisas cusub ee caabuqa COVID-19. ciidanka maamulka Puntland oo gacanta ku dhigay gaari laga soo dhacay dhanka maamulka Galmudug. sidoo kale maamulka Puntland waxay xaqiijisay kiisas cusub ee caabuqa COVID-19. dowladda Soomaaliya oo ka hortimid dib u dhigida dhageysiga dacwadda badda. ciidanka dowladda Soomaaliya oo heshiis dhex dhigay beelo muddooyinkii ugu dambeeyay ku wada dagaalamayay deegaanada gobolka Mudug. waxaan markale saaxiibayaal ismaqal wanaagsan. taariikhda waxa ay ku beegan tahay 16 bisha shanaade sanada 2020. intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka xulan. iminkana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. waayahay saaxiibayaal, haddii aynu ku bilaabno wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta meelgaarka ee maamulka Jubbaland oo xukun dil ah ku fuliyay askari kale ku dilay gudaha magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ka tirsan. ninka maanta la toogtay ayaa lagu magacaabaa Maxamed Cabdi Naasir. waxa uu ka mid ahaa ilaalada madaxtooyada maamulka Jubbaland. askariga xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale ka mid ahaa ilaalada madaxtooyada maamulka Jubbaland. dilka ayaa yimid kadib markii uu muran soo dhexgalay labada askari. maamulka Jubbaland ayaa xukun degdeg ah ku fuliya askarta waliba shakhsiyaadka kale ee gacanta lagu dhigo ee dilalka ka geysta gudaha magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ka tirsan. dowladda kale saaxiibayaal, haddii aynu eegno wararka ku saabsan taliyaha madaxtooyada maamulka Puntland waxaa lagu soo warmayaa inuu xil kala wareegay. taliyaha cusub ee madaxtooyada maamulka Puntland General Sare Cismaan Cumar Maxamed ayaa xilka kala wareegay taliyihii hore ee ciidamada madaxtooyada General Sare Barqad Cabdullaahi Yuusuf. munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday rugta ciidamada madaxtooyada waxaa ka qaybgalay taliye ku-xigeenka ciidamada daraawiishta maamulka Puntland Sareeye Guute Axmed Cali Salaad, taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal General Sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir, weliba dhammaan saraakiisha ciidamada madaxtooyada ayaana ka qaybgalay. dhammaan madaxdii hadashay ayaa u rajeeyay guul iyo weliba shaqo wanaagsan taliyaha cusub ee ciidamada madaxtooyada ee maamulka Puntland General Sare Cismaan Cumar Maxamed. khilaaf xoogan ayaa ka dhashay magacaabista taliyaha ee maanta xilka la wareegay weliba ku-xigeenkiisa kadib markii uu ka soo horjeestay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Raash oo markaasi hadal dhawaan sheegay. dowladda kale saaxiibayaal, haddii aynu eegno wararka ku saabsan caabuqa COVID-19 ee maamulka Somaliland waxaa lagu soo warmayaa in kiisas cusub markaasi laga diiwaangeliyay deegaanada maamulka Somaliland. 19 kiis oo cusub oo COVID-19 ayaa Somaliland laga helay, halka 2 ruux ay u dhinteen cudurka safmarka COVID-19 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka maamulka Somaliland. tirada guud ee dadka laga helay ayaa gaaraya 87 kiis, halka dhimashaduna ay markaasi ay u sii cagacagaynayso 8 qof. dadka laga helay cudurka waxaa ku jiray qof daadiisa ay tahay 12 jir. dadka cusub ee cudurka laga helay ayaa kala jooga magaalooyinka Hargeysa iyo weliba Boorama. daada bukaanada cusub waxa ay u dhaxaysaa 10 jir ilaa 20 jir. hal qof ayaa lagu soo warmayaa in laga helay caabuqa COVID-19. 20 jir ilaa 30 jir waxaa laga helay 2 ruux. 30 jir ilaa 40 jir waxaa laga helay 1 ruux. 40 jir ilaa 50 jir waxaa laga helay 4 qof. 50 jir ilaa 60 jir waxaa laga helay 6 qof. 60 jir ilaa 70 jir ilaa 5 qof ayaa laga helay. bukaanada waxa ay degan yihiin gobolka Maroodijeex magaalada Hargeysa, halka 6 qofna ay degan yihiin gobolka Awdal ee magaalada Boorama. waxaa xanuunka ka bogsaday 1 qof, taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee bogsatay 8 ruux ayaa lagu soo waramayaa. waxaa geeriyooday 2 qof oo ay da-dooda ahayd 76 jir 52 jir, taasi oo ka dhigaysa dadka xanuunka u dhintay Somaliland ilaa 8 ruux. labada bukaan kale waxay u geeriyoodeen caabuqa safmarka ee COVID-19. maamulka Somaliland waxay la daala dhacaysaa caabuqa safmarka ee COVID-19 waxaana dhawaan ay sheegtay in qalabyo markaasi cusub ay gaarsiin doonaan deegaano ee ka tirsan maamulka Somaliland sida magaalooyinka waaweyn ee Boorama iyo weliba Awdal iyo weliba Hargeysa. waayahay saaxiibayaal, wararka ku saabsan ee Puntland iyo weliba Galmudug haddii aynu eegnana ciidanka maamulka Puntland waxa ay qabteen gaari ee laga soo dhacay dhanka maamulka Galmudug. taliska qaybta booliiska gobolka Mudug ee maamulka Puntland ayaa shaaciyay in gacanta ay ku soo dhigeen gaari nooca loo yaqaan raaxada
oo toddobaad ka hor laga soo dhacay maamulka galmudug gaar ahaan koonfurta magaalada gaalkacyo ee maamulka gobolka mudug. Qoraal kooban oo kasoo baxay taliska qaybta booliiska gobolka mudug ayaa lagu sheegay in ciidanka booliiska ay ku guuleysteen qabashada gaarigaas oo midabkiisa cadaan yahay targadiisana ay tahay CN 721. qoraalka taliska laguma faahfaahin waqtiga gacanta lagu soo dhigay gaarigaasi iyo weliba haddii ay jirto in la qabtay ciddii soo dhacdayna, balse warka kasoo baxay waxay kusoo koobeen in kaliya gacanta ay kusoo dhigeen gaariga. Muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada maamulka galmudug weliba deegaanada maamulka Puntland waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo kuwaas oo inta badan ku wada hardamayay dul daaqsimeed markaasi la isku haystay, waxaana ciidamada maamulka Puntland iyo weliba ciidamada maamulka galmudug ay ahaayeen kuwo markaasi inta badan xalinayay khilaafaadka ka dhaxeeya dadka ku wada diriiray deegaanada ka tirsan maamulka Puntland weliba galmudug. Waya saxbal Puntland hadii uu nagu soo laabano waxaa la xaqiijiyay in markaasi kiisas cusub ee caabuqa COVID-19 laga helay deegaanada maamulka Puntland. wasaaradda caafimaadka ee maamulka Puntland ayaa xaqiijisay in 24 saac la soo dhaafay laga helay cudurka coronavirus deegaanada maamulka Puntland. war ka soo baxay wasaaradda ayaa la sheegay in maalinba ka dambeysa ay sii kordhayaan kiisaska cudurka COVID-19 ee deegaanada maamulka Puntland. 12 ruux ee laga helay waxay kala ahaayeen 7 rag 4 dumar ay ahaayeen. dadka laga helay waxaa kala joogaan 7 ruux gobolka Nugaal, 4 ruux waxay joogaan gobolka Karkar ee maamulka Puntland ka tirsan. tirada dadka xanuunka laga helay maamulka Puntland ayaa gaartay guud ahaan 136 ruux, waxaana u dhintay baalayaasha ruux, waxaana soo bogsatay ilaa iyo weliba 3 ruux. deegaanada maamulka Puntland oo ku sii faafay caabuqa safarka ee COVID-19. wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland waxa ay hore u sheegtay in deegaanada maamulka Puntland ay ga go'an tahay in ay markaasi ka hortagaan safarka ee COVID-19, waxaana ay sheegtay in ilaa iyo iminkanba dad markaasi loogu shakiyay caabuqa COVID-19 ay ku karantiilan yihiin qaybo ka mid ah magaalooyinka Garowe iyo weliba magaalada Boosaaso. waxaana la sheegay in dadkaasi qaarkood laga helay caabuqa safarka ee COVID-19, waxaana sidoo kale la sheegay in inta badan ay u digayaan dadka waaweynka in markaasi guryahooda iska joogaan maadaama caabuqa safarka ee COVID-19 uu nugul yahay dad waaweynka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Puntland. sidoo kale ugu dambeyntii waxay aad ugu mahadcelinaysaa dadka shacabka ee ku nool deegaanada maamulka Puntland sida wanaagsan markaasi ay ula shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka. xarunta gargaarka degdega ah ee wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland waxaa lagu sheegay in inta badan ay soo wacaan dadka shacabka ee ku nool gudaha maamulka Puntland, waxaana markaasi inta badan ay weydiiyaan caabuqa safarka ee COVID-19 sidoo ku faafo. waayahay saaxiibayaal, markaan haddii aynu eegno dowladda Soomaaliya waxay ka hortimid dib u dhigidda dhageysiga dacwadda dhanka iyo weliba badda. dowladda Soomaaliya ayaa ka hortimid dib u dhigidda dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo weliba Kenya kadib markii mar kale Kenya ay dalbatay in dib loo dhigo sababo ku aadan caabuqa safarka ee COVID-19. arrintan dad badan ayaa walaac ka muujiyay maadaama dowladda Kenya inta badan ay doonayso in badda Soomaaliya ay gacanta ku dhigto ama ay lahaataba. xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay doonayso in muranka lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda. warqadda ayaa dowladda Soomaaliya qortay waxay ku sheegtay inay tahay markii saddexaad oo ay Kenya codsatay in dib loo dhigo iyada oo ka cabatay cadaadis diblomaasiyadeed oo waaweyn oo ka imaanaya dhinaca dalka Kenya. waa run in dunida cudurkaasi uu ka dilaacay oo maqal furan oo maxkamadda gudaheeda ahi aanay dhici karin, isu socodkii aanay jirin oo dulumaadadii lagu tagi lahaa ee maxkamadda Hague aanay shaqeynayn oo dal walba albaabadu u xiran yahay. hase yeeshee maxkamaddu waxay soo saartay in shaqadeedii ay wadi doonto habka maqalka iyo weliba muuqaalka ahna ay dacwadaha ay ku dhageysan doonto ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo BBC-da markaasi la hadlay. waya saaxiibayaal, markaan haddii aynu eegno ciidanka dowladda Soomaaliya waxay heshiis dhex dhigeen beelo markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Mudug. taliyaha qaybta 22aad Generaal Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje iyo weliba saraakiil qayb ka tirsan ay safarkani ku helinayaan ayaa ku guuleystay inay isfahan hordhaca laga gaaro muran dhul oo ka dhex jiray beelo walaalaha ku wada dagaalamaya deegaanka lagu magacaabo Laas Gacamey oo 15 kiiloomitir u jirta gudaha magaalada Bacadweyne ee gobolka Mudug ka tirsan. taliyaha ayaa sheegay in ay si buuxda ugu guuleysteen in la xaliyo dhibaatada ka taagneed deegaanka isla markaana ciddii jabisana heshiiska markaasi la gaaray tallaabo laga qaadi doono.
kulan ballaaran oo ay deegaankaasi ka dhacay ayay odayaasha dhaqanka weliba taliska qaybta 12aad isla go'aamiyeen in laga gudbo muranada jira oo markaasi ragaadiyay dadka inta badan ay isdagaalaan oo ay markaasi isku adeegsadaan hubabka noocyadiisa kala duwan waxaana sidoo kale ciidamadu ay isku diyaariyeen in markaasi lagu wajaho deegaanada al-shabaab ay gobolka mudug ay ka joogaan ana gacanta ku soo dhigaan qaybta 12aad ayaa xoojisay xarumaheeda gobolka mudug gaar ahaan kuwa ku beegsan deegaanada furimaha ah ee si loo wajaho al-shabaab ciidamada taliska ee aagaasi ku sugan ayaa sidoo kale qaadaya mas'uuliyadda ammaanka deegaanada ay joogaan sidaasi waxaa yiri taliyaha qaybta 12aad General Cabdicasiis Cabdullaahi Qoje guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen xogta dalka waana geynta anigoo Cabdirashiid Ibraahim Cali ee la socodsiinaysa saaxiibayaal warkan warkiisa noole kulantay